Caashe Maxamed Mahdi waa gabadh Soomaaliyeed oo ka soo jeeda gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn oo ku nool waddanka Kanada. Waxay baratay wadista diyaaradaha ama sabayloodnimada muddo 2 sano ah kadib xilliga ay bilowday inay barato cilmigaasi bayloodnimada. Waxay sanadkii 2019 bishii tobnaad ayay ku guuleysatay inay qaadato liisanka darawalnimo ee wadista diyaaradaha iyadoo gabadha haddana waxay ahayd mid hamigeeda ka midho dhalisay. Waxay la soo martay marxalado kala duwan inay maanta kala noqoto mid xataa kaligeed duuliye diyaaradeed noqon karta. Caashe waxay noqonaysaa gabadhii labaad ee ka soo jeeda Soomaaliya isla markaasina noqotay duuliye diyaaradeed. bishii January ee sanadii 2018 ayay gashay iskuul lagu barto cilmiga barashada bayloodnimada. muddo 3 bilood ayay ku dhamaysay iskuulkaasi oo ku yaala magaalada ay ka degan tahay waddanka Kanada, kaasi oo lagu baranayay 4 maado oo ku takhasuskiisu yahay bayloodnimada. gabi ahaanba muddo 3 bilood ayay ku qaadatay inay soo afjarto barashada darawalnimada diyaaradaha, waxayna ku guuleysatay exam la xiriira maadooyinka ay soo baratay. Caashe waxay leedahay YouTube channel kaasi oo ay ka caawin karto dhalinyarada doonaysa inay bartaan cilmigaasi wadista diyaaradaha. sidoo kalena waxaad kala xiriiri kartaa emailkeeda oo ah kan shaashada ka muuqda haddii aad u baahan tahay cilmigaasi iyo waxyaalaha la xiriira. ugu dambeyntii Caashe waxay ku dhiiratay inay noqoto wada diyaaradeed oo rasmi ah isla markaasina haysata liisanka darawalnimo ee bayloodnimada. Caashe waxay ku dhiirigelinaysaa hablaha Soomaaliyeed inay ku dhiiradaan wixii hadafkooda ah ay doonayaan inay sameeyaan. waxay tiriyado khadka teleefanka igu waramaysa su'aalo dhowrana aan ka weydiiyay cilmigaasi. Caashe marka horeysa soo dhawow xilligii aad bilowday barashada wadista diyaaradaha cilmigaasi goormo ayuu ahaa Caasha? xilligii aan bilaabay barashada diyaaradda waxay ahayd bisha January oo 2018. soo intaada duulimaadka aadan bilaabin maaragtay waxaad ku bilaabaysaa 4 maado oo ground school aad dhiganaysid, aad fasal fadhiisanaysid ilaa waxay kugu qaadanaysaa muddo 3 bilood ah. 4 maado markay kugu dhamaadaana imtixaankii qoraalka ayaad qoraysaa. haddaad rabtidna qof walba choicekiisu leeyahay. haddaad doontid adoo maadooyinka wado baad haddana duuli kartaa haddaad rabtidna iska boobsiisid. haddii kaleetana maadadaada baa ayro dhalata iska dhigani markay kugu dhamaato imtixaamadii aasa samaysidna duulimaadkaagaad bilaabi kartaa. sidaan sameeyey 3 bilood markay maadadii ii dhamaatay uun baan duulimaadka bilaabay. ujeedkaad u baranaysay muxuu ahaa Caasha? ujeedkan u baranayay wuxuu ahaa anoo yarba ayeeday baan la safri jiray marbo wadamo aan soo marno markuu iskoolka xidhnaa dhowr wadan aan degdegnayna way jirtaa. marka mar alaala markaan dayuurad arko meel duuleysa ama markaan geedka ku sugayno rabno inaan raacno aan arko wadistii oo socsocda. markaasna gabdho ma badnayn moogtahay, soo gabdho maan arki jirin. ana waxaan u haystay inay tahay wax oo nimanka keliya loogu talagalay gabadh wadi karin. laakiin I was amazed markaan dayuurad arko. wuxuuna yahay gaadiidka aan ugu jeclahay inaan koro markaan safrayo. soo markii hore waan yaraa waxaan ku fikiri jiray waxaan rabaa inaan noqdo dadkan gabdhahan shaqaalaha diyaaradda ka ah oo kuwan oo flight attendiga oo cuntada ku siinayo. markii dambena waan isbedelay xoogaa riyadaydana waan ka haray because qof aan aqoon u qabay ma jirin oo diyaarad duuliya moogtahay. baarka bacdi waa fakaray wax kale aan anigu hamni u qabaan jecelaan inaan suubiyana ma jirin oo kaleeto moogtahay shaqo kale. markii dambaan dhahay duuli iska noqo waxay kuu qaato. so wixii ugu horeeyaan suubiyoba waxay ahayd Google-kan geliyey how to become a pilot, sidee duuli u noqon karaa. iskoolal fara badanaa ii soo baxay. iskoolihii baan la hadlay, waan tegtegay. mar waxaa jirta markaad rabtid inaad duushid aad aragtid siday duulimaadka tahay discovery flight wax la yiraahdo oo macalinku raacayo oo diyaaradda ku tusaya intuu kaco uu controolka ku dhiibaya wax yar aad wadwadaysid baa jirta inaad jeceshahay inaad jeclaatid iyo in kale moogtahay. tii baan suubiyey waaba sii jeclaadayba inaan soo daadegto maba rabin.
so taas markaan go-aankayga gaadhay baa waxaan sameeyey waxay ahayd waa shaqaystay lacag baan urursaday meel dhigtay kabacdina maadadii baan sidaa ku bilaabay aad iyo aad baad u mahadsantahay caasha haddii aad liisankii darawalnimo ee bayloodnimada aad qaadatay dareenkaagu waa sidee alxamdulilah laysankii darawalnimada ee bayloodka waan soo qaatay inkastoo aan ahayn gabadhii soomaaliyeed oo ugu horeysay waxaa iga horeysay maamo asli cabaade oo ah gabadhii soomaaliyeed oo africa oo dhan ba ugu horeysayba oo iyada diyaaradaha dagaalada ay wadi jirtay marka iyadana roob maaro bayba ii tahayba inkastoon la sheekaystoo la hadlo aan su-aalaha aan qabo waa iska weydiiyaa marka iyadana in badan aan wax ka faa'iiday weli ma isku dayday diyaaradda inaad kaxayso adoo keligaaya aan cidina kula socon maalinta oo bayloodka uusan ilaawin weligii xasuusanayo uu xataa sanad guuro ka haysto waxaa weeye maalinta oo soolooga lagu diro ama keliga lagu diro cirka lagu diro oo cidna kula socon xataa macalinka aana kula socon maalintaasna waxay ahayd maalinta oo igu farxadda badnayd inkastoo uusan iisii sheegin macalinku laakiin walaahi farxad aada iyo aada aadan weliga u malayn karin aan dareemay maalintaas waxaan dareemay inaan kasoo baxay howl aan islahayn weligaa waad kasoo bixi kartaa accomplish weyn bay ii ahayd wallahi laakiin alxamdulilah hablaha soomaaliyeed maxaad ugu baaqaysaa ugu dambeyntii ugu dambeyn aas qof haweena hablahoo dhan waxaan ugu baaqayaa waxaad hadafka ka leedahay inaad ka hadhin waxay doontaba ahaato macalinimada ahaato ama daktarad ahaato waxaad jeceshahay inkastoo caqabado kusoo hor istaagay inay jiraan oo jiri doonaan inaadan weligaaba ka hadhin aada maxaa dhahaa intaa ilaahay tawakal saaratid waa kasoo bixi kartaa waxaad niyadaada gashatid qof walba wuu kasoo bixi karaa daawadayaal taasina waxay ahayd caashe maxamed mahdi oo ku sugan waddanka Canada taasi oo baratay cilmiga wadista diyaaradaha ee beeloodnimada waxay waraysi gaar ah siinaysay tiifiyada afka Soomaaliga ku hadla gaar ahaan TV-ga Som News iyo warbaahinta Bidhaan Media waxaana la socodsiinaya anigoo ah Maxamuud Aadan Askar Maxamuud Gurey